waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin. Waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan, jimco mubaarak. Waxaan rabaa maanta inaan faahfaahin ka sameeyo dadka Soomaaliyeed iyo dhaqankooda iyo dadka kale dhaqankooda wixii u dhaxeeyo. Waxaan arkay clip yar oo ay gabar soo duubtay isticmaasha social media oo ay ku dhaamayso ama ay ku caayayso wiilasha Soomaaliyeed sharaftooda iyo ixtiraamkoodana ay hoos ugu dhigayso. balse anigoo taas uga jeedo waxaan rabaa inaan u faahfaahiyo gabadhaani dhaqanka Soomaalida iyo dhaqanka kaleetood wixii u dhaxeeyo dadka Soomaaliyeed dhaqankooda iyo dadka kaleetood wixii u dhaxeeyo dadyoga kale dunida ku nool. Waxaa jiro dhaqan Soomaaliyeed oo anaga kaligeeno balse aysan ogeyn gabdhaha Soomaaliyeed oo walaalahayna. waxaan rabaa inaan u faahfaahiyo waxyaabaha anaga kaligeeno oo dhaqankan anaga kaligeen leenahay oo cid kale aysan nala lahayn. Okay, waxaa jirto maanta haddii gabar Soomaaliyeed oo wiil guursado Soomaaliya oo asaageeda oo berri oo furo waxay guursanaysaa wiil kale oo Soomaaliyeed oo walaalkeeda oo isla asaageeda. balse haddii uu sii furo haddana waxay guursanaysaa wiil Soomaaliyeed oo haddana asaageeda. arrintaasi waa arrin nasteexa oo gabdhaha Soomaaliyeed nasteexa u oo iyaga ay kaligood haystaan. haddii aad ilowdo nicmada Ilaahay ku siiyo oo adiga aad haysato waxa tahay qof doqona. haddii aad ka gudubto wadanka Soomaaliyeed oo tagto wadamanka kaleetood waxaa jiro wadaman haddii gabdhahooda la guursado oo la furo aan dib dambe loo guursan ee sidooda ay ku duqoobayaan. waxaan kaaga soo bilaabayaa sidii wadanka Turki. waa taqaaniin Turkish waa wadanka Soomaaliya ugu fiican ee calaaqaadka leeyihiin oo ay aad iskugu fiican yihiin saaxiibada dhow ay yihiin. haddii gabar Turkish la furo oo nin Turkish oo asaageeda intuu guursado oo furo dib dambe looma guursanayo ee sideeday ku gaboobaysaa amba wadankay ka baxaysaa oo waxay guursanaysaa sidii dadka cadaanka amba Afrikaanka oo kale. haddii oo nin naag Sacuudiyana oo wadankeeda ku dhalatay ha lacag badnaato ama wax kale ha ahaataba haddii ay nin Sacuudiyaan oo asaageeda ay guursato xataa lacagtii uga baxday cusba u yare waa loo celinayaa. haday naagtaas ay fiicnaawayso oo furo ma guursan karto naagtaas nin Sacuudiyaan oo asaageeda ka soo tag wadanka Masar. hadda aniga ku suganaa hadaa imaado nin Masriya haduu guursado gabar sharaf badan oo asaagiisa oo haddana furo ma guursan karo nin kale oo Masriya. waa dhaqanka u yaalo. waxay naqanaysaa naagaha duloobay ama waxay naqanaysaa naagaha Afrikaanka kale iska aroos amba cadaanka oo wadanka ka hayaama ama waxay guursanaysaa ninaan aad u fiicnayn oo wadanka ku nool. waxaa jira wadaman badan oo lamida oo sidaas oo kala. annaga marka waxaan haysanaa nicmo Ilaahay la siiyay oo Ilaahay noogu nasteexeeyo oo ku saleysan diinta Islaamka. haddii naag la furo oo nin Soomaaliya oo naag furo Soomaaliya amba gabar Soomaaliya walaashiisa oo furo waxay guursanaysaa gabar wiil Soomaaliya oo kale ilaa ay ka gabowdo. nicmadaas marka qof haysata ma jirto. wiilasha Soomaaliyeedna waa dheeman hadduu carro ku dhacay la tirtirana wuxuu noqonayaa dheemankiisa. xumaanta lama saari karo wiilasha Soomaaliyeed oo kaligood ma xumo oo waxaa jirta boqolaal kaleetood oo naagood xun. hadaa adiga xun tahay amba adiga dabeecadaada ay xun tahay micnaheedu ma ahan inuu ninku xun yahay. qof kaliyana ma xumaan karto. waxaa marka kuu sheegayaa naagaha waxaa ku jira qaar xun. nimanku haddii shano ay xun tahay boqol way fiican tahay oo kumanaan fiican ku jirto. marka wiilashayna Soomaaliyeed oo fiican waxaa fiican inaadna sharafta ka qaadan oodan dhaamin. waxaa ku jira wiilal boqoreyna waxaa ku jira wiilal aad u qurux badan waxaa ku jira wiilal dabeecadooda ay aad u fiican tahay waxaa ku jira wiilal aan dabeecadooda wax la siistay aysan jirin. haddii adiga aad xun tahay ma ahan xumaanta inaad saarto ninka adiga aad la heshiin weysa ee waa inaad adiga isweydiiso qaladku xagoo ka yimid. mana ahan inaa wiil walaalka aad sidaas u cambaarayso amba aad dhaanto. waxaana kuu sheegaya wiilasha Soomaaliyeed waa wiilal aad iyo aad u wanaag badan. taas waa inaad ogaato. taasna waa inaad qalbigaaga ka dhaadhiciso. dhaqanka Soomaaliyeedna dhaqan lamida ma jira adduunka. waa dhaqankii ugu wanaagsanaa waa dhaqankii ugu fiicnaa. wiilasha Soomaaliyeed waa wiilasha adduunka ku nool wiilasha ugu fiicnaa. waa dheeman waxaana ku faanaa in Ilaahay Soomaali iga dhigay. waa mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. barnaamijka sii share gareeya gabadhaasna loo geeyo.